dawadayaal ku soo dhawaada qaybta idaacadda raadiyo baraarug media iyaga kala duwan ee warbaahinta baraarug ee aad ka gargartaan qaybaha kale gobolka baraarug media iyo baraarug.net oo aan habeen kusoo gudbino waxa ka dhacay geeska Soomaalida iyo caalamka saaxiibayaal ay ilaawinayaan inaad ku dhufataan subscribe oo si la gareysaan inay u laagtaan saaxiibadeen. Xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ka jawaabtay hadalkii maanta ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Xirsi gudoomiye ku-xigeenka hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa maamul wanaagga ee maamulka Muuse Biixi Cabdi Liibaan Ismaaciil Bulaale ayaa qoraal uu ku baahiyay barta uu ku leeyahay Facebook ee baraha bulshada ku wada xiriidha ka jawaabay weerarihii yeedihii kulaa ee maanta uu hawada u soo mariyay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Qoraalka uu ku qoray baraha bulshada gudoomiye ku-xigeenka hay'adda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo maamul wanaagga oo Muuse Biixi Cabdi ka soo jeeday beeshiisa ayaa u dhignaasan saaxiibkay Xirsi waa in uu fahmaa in madaxweynuhu ku dhex jiro muddo xileedkiisii koobaad maamuuska madaxweynaha in aanu ahayn mid xisbiyo bixiyaan ee uu yahay arrin dastuuri ah doorashada xisbiyaduna in ay tahay dastuuri. Xirsi waa in uu isu aqoonsadaa inuu yahay gudoomiyaha xisbi ka jira Soomaaliland ee aanu ahayn afhayeenka farmaajo oo difaaca farmaajo aanay meelna uga furnayn arrimaha baasaboorka kana. Xirsi isaga ayaaba iibsaday baasaboor Ingiriisi oo maray khadka Yemen ero oo u dhisayana waa Finland. Arrinta muhiimka ahi waa inuu u fahmaa in aan cidna sanka caana ka keenayn sharcina cidi ku tumanayn tallaabooyin la marayna ay yihiin tallaabooyin sharci waxaana taas caddayn ugu filan xildhibaanada xisbiga wadani kuwa ucid iyo kuwa kulmiye waxa ay ku midoobeen waa mas'alo sharci ah. Gudoomiyaha golaha wakiiladuna wuxuu garwaaqsaday sharci ku taagnaanta xildhibaanada oo arrinta maxkamadda dastuuriga ah ku jirta wuu ayiday. Saaxiibkan waxaan leeyahay kartidaada ayaa lagaaga baahan yahay in aad xisbiguna uu kaalintiisa xisbinimo xejisto ku soo saarto ee hadal tiro looma baahna. Sidaa waxay Liibaan oo isagu ka jawaabayay hadalkii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani. Haddaba hadalkan uu ka jawaabayay gudoomiye ku-xigeenkan ee ku hadlayay afka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa daba socda markii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi uu maanta shir ku qabtay magaalada Hargeysa uu soo bandhigay sharci jabine fara badan oo Muuse Biixi Cabdi uu ku kacay iyo wasaarado iyo wasiiro iyagu sharci darro ku fadhiya kursiga ama hay'ad xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi kamid ah.